Mareykanka ayaa weli haysta mid ka mid ah ciidamada cirka ee ugu awoodda badan dunida iyadoo uu ku faanayo diyaarado casri ah sida F-35, F-16 iyo F-22 Raybon. Diyaaradahan ayaa lagu yaqaanaa tiknoolajiyad sare oo awood qarsoodi ah leh iyo waxqabad dagaal oo heer sare ah. Si kastaba ha ahaatee, dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Bariga Dhexe, gaar ahaan xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran, ayaa iftiimiyay xaqiiqooyin cusub oo ku saabsan awoodda dhabta ah ee diyaaradahaas. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya dagaalka in uu muujinayo in qaar ka mid ah droneska Mareykanka la burburiyay, isla markaana ay jireen dhacdooyin diyaarado casri ah waxyeello lagu gaarsiiyay. Inkasta oo Mareykanku diiday sheekooyin badan oo ku saabsan in diyaarado muhiim ah laga soo riday, haddana falanqeeyaal badan ayaa tilmaamay in dagaalka uu muujiyay caqabado cusub oo ay la kulmeen xitaa diyaaradaha ugu horumarsan. Waxaa sidoo kale la soo sheegay hoos u dhac ku yimid kaydka gantaalada iyo hubka casriga ah, taas oo ka dhalatay isticmaalka joogtada ah ee dagaalka. Tani waxa ay hoos sare u qaaday su'aal ku saabsan diyaargarowga mustaqbalka iyo sida loo maareyn karo dagaal waqti dheer soconaya. Khubarada militariga ayaa isku raacsan in inkastoo Mareykanka uu weli yahay awoodda cirka oo aan si sahlan loo gaari karin, haddana dagaalka Iran iyo Mareykanka u dhaxeeya waxa uu cadeeyay in tiknoolajiyada casriga ah aysan ahayn mid gebi ahaanba ka badbaadi karta halistan. Dagaalkan waxa uu fariin cad u diray dunida awoodda militariga ee casriga ah waana mid xooggan balse aan ku dhisnayn, ayaa la yiri. Nuglaansho mustaqbalka dagaalka cirka waxa uu noqon doonaa mid si weyn u go'aamiya hal abuurka difaaca casriga iyo xeeladaha cusub.